يلي فكرة فراس ما كان شلون ولا لا يجي كده waxaan sugaynaa natiijadii siday u dhacday cidda ku guulaysatay codkii walaan dhowra natiijada haddase waxaa ka soo baxa guddigii isagaa isku maqan waayo guddoomiyihii u istaagay natiijadii waxay ku dhammaatay 69 oo helay maxamed cumar cismaan waxa uuna ku guulaystay doorashadii محمد عمر عثمان وكلمة sidaas waxay ka muuqataa xubnihii xilka la kala wareegayay naftuhure sheekh ibraahim cabdalla oo muddo badan soo hayay hogaaminta jabhadda iyo naftuhure jenaraal maxamed cumar cusmaan oo hadda xilka kala wareegahayay kadib markii si xorriyadi ku jirto oo aan lahayn wax abuurisa ama aan lahayn wax jujuub ah oo codbixin rasmi ah ay u qaadeen jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya xubnihii ka soo qayb galay shirweynaha labaad ee ay jabhaddaasi lahayd natiijadii oo uu ku dhawaaqahayay shir guddoomiyihii shirkan guddoominayay naftuhure axmed nuur maxamed cumar sawado ayaa waxay ahayd munaasabad aad iyo aad u farxad badan taasi oo aad ka dareemaysaan in ay naftoodhurayaashu si kalsooni iyo sharaf leh ay uula kala wareegahayeen xilka iyagoo uu qof waliba diyaar u yahay in uu guto waajibaadka uu qaaday ummadda iyada oo waxa meesha lagu hayaa ay tahay hawl ummadeed oo aad iyo aad runtii u culus dadweynaha meesha fadhiya oo ka kooban xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ee ku jira saaxada halganka ee rasmiga ah ama mid siyaasadeed ama mid qori waxay ahaayeen kuwo si saraaxiya sharafi ku jirto runtii oo aan lahayn wax cidhiidhi iyo buuq ah sida aad ka dareemayseen u doortay mas-uuliyiintii ay dooranayeen ha noqdaan kuwa hogaaminta golaha dhexe iyo kuwa madaxweynaha ama xubnihii kale ee ay dooranayeen
doonayaan idin maadaama dool hada mustaqbal xaggaasa dastuurka u leexo xaggankan waa sidaa way fiican tahay marka hase yeeshee markuu xisbi qura yahay ragga qaarkii oo golaa dhacaa raalli kama ahayn xisbiga laba meelood laga shaqeeyo mudanka xisbi hal hadda waagii hore shirweynihii garbo waxaan ahayn fadhiga ummadda uleegeynaysa loo yeero shir lagu dooranayo jihada waa lagu asaasayo marka asaasku waxaa weeye waxaa leh ra'yiga dadweynaha maanta waa shir xisbiga quraaya marka laba nin inaan laga sharxin baan waa nin qura ka soo bixi inaan imaadana waajib ay ahayd oo dagaalkan ku jiray ee jihaadka aan dibaddu kasoo istiqaarooda maaha wuu iskaga cararay dhibaatadii diiday maaragtay jihaadka raalli kama ahayn wuu iska daciifay sidana ka fiican oo ka midho badan in badan baa soo lugeynay saan idin ku nimaadno oan u aragno waxaa lagu leeryahay maxameda beriyaha middanba loo qaadi marka anigu waxaan taariikhda soo maray waxaan ku qaadanaynaa hulahanadii hore aan dalka ka aho inay si fiican u socotay meelo badan soo marinay loo soo gaajooday habashii iska celinay wax badan aan qoray lacag badan aan hellay iyadoo maalinkii dhagaxbuur baana weeniyo aan ka qabinaynay garba markaan garbo ka soo noqono kaas alla xorseeda been ugu soo weerartay garow baan weynay maantana wakaa meel walba ay oonayso maalin walba adduunka dumar badan ba saaxiibka xidhnay intaasu milkiran qoray waa fiican tahay marka anigu dhinacin baan ku jiraa minted saamanu taagin maanta kulahaa anuu barnaamijkayga waxaa dhi waa diidma etoobiya ogaadeen soomaali carabi muslim baana waa intaas dad afartaa god baan ka dagaalamay wada nimanka soomaalida ku dagaalamay carabi baan ku dagaalamay intaasaan xilliyada ila qoraynayay ama bah ila ah marka ninka iga soo horjeeday waxaan doonaysa inuu sheego maxamed baa qasaaranta barnaamijkan waa kaanaga annaga kan ninkasta intaas malate kaasi wuxuu ahaa hore naftuure sheekh ibraahim oo muddo badan hawsha soo waday wuxuuna ka warramayay halgankii uu soo maray intii uu hogaaminayay jabhadda ninka hadalka la wareegay waxaa weeye naftuhure jenaraal maxamed cumar cismaan oo maanta loo magacaabay inuu madaxweyne ka noqdo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeda waxaan aad iyo aad maxad ugu celinayaa dadka sharafta leh ee maanta halkan isugu yimid nafdowfuriyaasha halgamayaalka marxalada dheer iyo waktiga dheer soo hogaaminayay halgankan gobonimodoonka waxaan si gaara ugu mahadnaqahayaa sheekh ibraahim cabdallah oo halgankaas muddadaa dheer isagoo hogaamiye u ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqahayaa uguna ammaanahayaa dawrkii adkaa iyo mataqaanaa mintajnimadiisii iyo siduu mar walba uu u diidahayay kuwa waaniya ee ku waaniya jilaya ah ama kula taliya inuu ka tanaasulo mawqifkiisaas mar walba isagii diidanaa baan runtii waan ku ammaanaya waxaan anigu ballan qaadaya wax kale khudbad badan oo halka aan ka soo jeediyo waktigan hadda aan ma garanaya runtii waxaan ballan qaadahayaa inaan ku socdo xeerka iyo barnaamijka aad qorateen aynu halkan ku oggolaanay waxaan ballan qaadahayaa inaan ku socdo waddadii wanaagsanayd ee halgankani uu ku soo socday muddadii dheeray ma aha intii halgankaasi waddadii ku soo socday waxay ahayd halgan gobonnimo doona iyo xornimo inuu dalka ogaadeynayo gaarsiiyo ballantaasaan qaadayaa ballanqaadkaygaasi ma aha anigu keligay inaan wax tari karahayo waxaa ballankaan ku qaadahayaa waa magaciina oo aan ogahay inaad aad iyo aad ugu heelan tihiin ama aada ugu jajaban tihiin hawsha gobonnimo doonka
inaad aada u jeceshihiin xornimada aad inaad u jeceshihiin inaad ka hoos baxdaan gumaysiga amxaarada inaad ka hoos baxdaan ama etoobiya aan idhaahdo inaad ka hoos baxdaan aad aada u jeceshihiin taasaan ballanka ku qaadahayaa waxaan ballan qaadahayaa in jabhadda la ii doortay maanta in aan dhexdeeda cadaalad iyo sinaan inaan kaga shaqeeyo ayaan ballan qaadaya hortiina ka ballan qaadaya waxaan ballan qaadahayaa in alla inta awooddayda ah aan ku dadaalo sida ugu wanaagsan inaan u hoggaamiyo oon u hawlgeliyo ama ha ahaato dhinaceeda militariga dhinaca abaabulka dadweynaha dhinaca siyaasadda dibad iyo gudaba waxaan ballan qaadahayaa in alla intii suurtagal in aan ku dhaqmo barnaamijka iyo xeerka iyo shuruucda ururku leeyahay ama jabhaddu ay leedahay inay sida loo dhigay ama sida suurtagalka ee ugu wanaagsan inaan ayaan ku ballan qaadahaya waxaan ballan waa xil igu cusub xilal fara badan baan soo qabtay oo hadda ka hor aan soo qabtay xilal kala duwan oo heer walbalaan soo qabtay laakiin xilka jabhadeed waa xil igu cusub waayo aragnimo fara badan buu u baahan yahay runtii waa uu ka duwan yahay xilalkii hore ee dawladeed ee maamul jira uu ka duwan yahay waxaan ku dadaalayaa inaan darsi idinka qaato intii hadda ka hor soo hoggaaminaysa inaan darsi ka qaato ayaan ku dadaalayaa nafti-huraha inaan darsi ka qaato hoggaamiyayaashii hadda ka hor soo hoggaaminaya ibraahim cabdalle inagala joogo inaan darsi iyo la tashi ka qaato raggii hore ee mataqaanaa golayaasha dhexe iyo hoggaankii jabhadda inaan darsi ka qaato darsigaa in alla intii wanaagsan ee aan ka faa'iidaysan kara inaan ka faa'iidaysto duruufo gaaruu dalkeenu leeyahay cadowga inala dagaalamahayo duruufo gaaruu leeyahay duruufahaas oo dhan inaan dhexdiina ka faa'iidaysto ay duruusii noqoto ayaan ku dadaalaya sidii aan sheegay farifool ma dhaqdo ruux keliya wax ma tari karahayo waxaanu ahay qof idinka mid sidii aan sheegay in yar baan ku leeyahay hawsha in baan ku leeyahay intaa aan ku leeyahay waxaan ku dadaalayaa inaan sida ugu habboon inaan uga soo inta kalena waxaan jeclahay inaad si fiican aad gacan igu siin doontaan ayaan rajaynayaa eeba ka rajaynaya run ahaantii dee waa haddana waa lay doortay waxoogaana waxaad moodaa in hadalku iga duulduulahayo waa maalin taariikhdayda meel kaga taalla run ahaantii waa maalin cusub weeye haahey waa runtii halganka awal hore haddaan dawlad soo shaqayn jiray waa maalin taariikhdayda halgan bilowgeedii meel ka bilaabanaysa weeye waxaan ilaahay ka baryahayaa inay mid naajixa inay noqoto mid aan ceebaynin oo aan ceeb aanan la kulmin hadda ka hor weligay shaqa aan qabtay kuma ceeboobin waxaan ilaahay ka rajaynayaa tanna inaan ku guulaysto ayaan ilaahay ka rajaynayaa idinkana mar labaad mahad ballaaran baan idin celinayaa kalsoonida aad isiiseen aad igu doorateen dhammaantiin intiinan halkan joogta oo dhan waa i wada doorateen waa i doorateen niyad sami iyo walaaltinimo iyo helsinimo wanaagsan baan idiin hayaa dhammaantiin waxaanan jeclahay inaynu si fiican u wada shaqayn doono gacan wanaagsanna aad igu siin doontaan hawshaydaa annagtiina gacan wanaagsan baan idinku siin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin qolyaha shirkadowkuna dee hadda ka bacdi wixii shirkeenna sida inoogu talagaleen un baynu dhegaysanayna aad baad u mahadsantihiin maanta ay bisha sagaalaad tahay 10 waa maalin maanta bishu waa 10 waa maalin talaado ah waxaana soo gabagaboobay shirweynihii labaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo xidhmay shalay garinkii dambe intii ka dambeysay shirweynahaasi waxaanu waraysiyo kala gaargaar la yeeranay xubno fara badan oo ka tirsanaa mas-uuliyiintii hore ee jabhadda
iyo weliba kuwa hadda dib loogu doortay inay noqdaan hogaaminta jabhadda kuwaasi oo su-aalaha aanu weydiinayna ay la xidhiidheen intooda badan hanaankii shirweynuhu uu dhacay iyo sidii ay ku gabagabowday doorashadii musharaxiintii isu soo taagtay inay hogaamiyaan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya axmed daahir sheekh maxamed oo ku magac dheer axmed jabhad waxaan weydiinay bal marka hore inuu si kooban uga hadlo jawigii guud ee shirka. shirweynihii labaad ee jabhadda waddanka Kenya kaas oo furmay muxuu ahaa 8 bishii 9aad soona gabagabowday galabnimadii bishii 9aad 9kii bishii 9aad 9/8 shirkaas muddadii uu socday wuxuu runtii ku socday si aad iyo aad u qiimo badan. shirkaa waxaa ka soo qayb galay ergooyin ka kala socda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya qaybaheeda kala duwan maamul bulsho unugyada gudaha ciidanka xoreynta ogaadeenaya ergooyinkaasi waxay ka kala socdeen qaybaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxayna shirkii ku dhammaysteen si farxad iyo guula. halkaas waxaa soo maartay shirka socodka waxaa barbar socotay ajendayaashii shirka lagu dhammaystirayay waxaa ka mid ahaa doorashada guddoonka jabhadda golaha dhexe iyo barnaamijka siyaasiga iyo xeerkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya run ahaantii arrimahaas si fiican baa loo dhammaystiray. halkaa waxaa lagu dhisay golo dhexe oo ka kooban 45 xubnood iyo 10 xubnood oo kayd ah kaydka golaha dhexe ah. waxaa kaloo halkaa lagu doortay madaxweynaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya. halkaa madaxweynenimada waxaa halkaa ugu tartamay si cadaalad ah oo maaragtay dimuqraadiyadda afka qalaad waxa lagu yidhaahdo dimuqraadiyadda salka ku haysa ayaa waxaa ugu tartamay 2 nafti hore oo ah guddoomiyihii hore ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya sheekh ibraahim cabdulla maxamed iyo naftii hore jenaraal maxamed cumar cismaan. waxaana halkaas ay ku dhammaatay natiijadii oo raacday maxamed cumar cismaan oo loo doortay madaxweynaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya. jawiga guud ee socodka shirka muddadii uu socday si aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf oo cadaalad waxna wanaagsan ka muuqdo shirkaas u socday sidaa ayuu ku soo gabagaboobay. salaamatihiin asalaamu calaykum. cabdullaahi gudcade waxaan ku weydiinaynaa bal wax yar inaad si kooban uga waranto doorashadii shalay. bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed. waad mahadsan tahay maxamed shari. haddii aan kaaga warramo doorashadii shalay waxay u dhacday si dimuqraadiyad ah oo ay ku jirto xamaasad iyo sharaf halgacayl huwan wadaninimo gobonnimo jacayl xornimo doonnimo ay ku jirto ayay u dhacday. waxaa laga yaabaa sida xisbiyada inta badanba ka dhacda aan idhaahdo in musharaxiintu ay u kala taageersanayeen xisbigii keliya ee soo wada sharaxday. adigu dhinacee baad ahayd? anigu waxaan ahaa xisbigii ku guulaystay doorashada helay voodkii helay baan ku jiray. qoladii soo sharaxday maxamed cumar cismaan. kolkaa go-aankii haddii xaggiina u dhacay waad ku faraxsantay waan maay? aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waan kugu hambaya. dimuqraadiyada oo cilmiyeysana way u dhacday. wax carqalad iyo dhibaato oo ka dhacday miyaa jirta? ayaa ka bislaatay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya way ka bislaatay doorasho inay xamaasad dhexdeeda ay ka kacdo waa heer la dhaafay laga gudbiyo wey. waa mahadsan. بسم الله الرحمن الرحيم. hore waxaynu ugu soo jirnay waraysiyo kooban oo dhexyaal u ahaa shirweynihii labaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya inagoo mas-uuliyaadka qaybaha iyo madax kale oo jabhadeedba la kulanay.
fadhigan maanta 17kii bisha 9aad 1998 saacadna tilmaanta 8:09 daqiiqo guddiga fulinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya xubnaha halkan ka fadhiya waxa ay hadda diyaar u yihiin in ay maraan daartii maamul xilka ay u magacaabay madaxweynaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya kaasi oo la rabo inay u qabtaan ummadda siiqadii dhaartuna waxay u dhacaysaa sidatan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعدكم لعلكم تذكرون والله بالله تالله إنان داعد النهي تلك العصب دين كالندى دلك النجا يددك النجا dhaartaasi waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo xoghaynta rasmiga ah ee xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل